wardegdega assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada wardegdega oo haddana soo gaadhay hay-adaha ammaanka deegaanka soomaalida ayaa fashiliyey qaraxyo la rabay in lala beegsado boqolaal shacab aan waxba galabsan waxayna ciidanka booliska deegaanku gacanta ku dhigeen xogtii iyo dadkii fulinaya arrintaasi faarax cabdi ayaa arrintan noo sii faahfaahinay hay-adaha ammaanka ee deegaanka ayaa gacanta ku dhigay isla mar ahaantaana fashiliyey qarax lala rabay in lala beegsado goobaha ay mujtamacu isugu yimaadaan sida jaamacadaha iskuullada isgaarsiinta iyo goobaha ay bulshadu sida weyn ugu badan yihiin iyadoona falalkan argagixisannimadka ay ahaayeen kuwa lagu rabay in lagu wiiqo nabadda iyo xasiloonida shacabka deegaanka isla mar ahaantaana la samaynayey waraaqo lagu qorayo isku dhufashada qoomiyadaha walaalaha ee wadadega deegaanka iyo dalkaba si aan loo argagaxgeliyo nabadgelyada deegaankana ay saameyn u yeelato haddaba qaraxan ayaa waxaa sida uu noo sheegay komishineerka booliska dowladda deegaanka soomaalida radaad komishineer maxamed cali xasan waxaa soo abaabulay xaraagii naflacaaridka xukuumaddii hore iyo kooxo gabaad ka dhiganaya falal argagixisanimo oo iyagu adeegsanaya tabooyin kala duwan si ay ummadda deegaanka nabadgelyadeeda u wiiqaan waa kan komishineerka booliska dowladda deegaanka soomaalida mudane maxamed cali xasan oo arrintaasi ka hadlaya bismillaahi raxmaan raxiim 19 bishan 2011 taariikhda tirsigeena Itoobiya waxaa la diyaariyey oo la qorsheeyey fal la doonayay in lagu fuliyo gaar ahaan magaalada Jijjiga lagu fuliyo la diyaariyey la qorsheeyey falkaas oo hogaaminayay ninka magaciisa la yiraahdo Ahmed Mahad Culuw Ahmed Ilkacse ninka la yiraahdo falkaas oo hogaaminayay runaantii falkaas waxaa la rabay in meelaha bulshada ay ku badan tahay la qarxiyo oo bulshada lagu dhibaateeyo si loo yiraahdo maanta deegaanka nabadgelyo darro ka jirta si loo yiraahdo runaantii annagoo iskaashanayna hay'adaha amniga gaar ahaan qaybaha kala duwan ee booliska iyo shacabka oo iskaashanaya runtii arrinta waa laga hortagay waa la qashafay waa la fashiliyay arrinkaas runaantii si fiican baa loo fashiliyay qorshe wuxuu ahaa qorshe ballaaran la soo abaabulay lacag badan lagu fangareynayay runaantii waxaa la diyaariyay marka hore feeska horeysay in lagu bixiyo qaraxa 200 oo kun marka hore in la bixiyo xubno la soo diyaariyay baa jiray oo la doonayay qaraxyada inay fuliyaan marka hore in 200 oo kun la siiyo wiilasha markay qarax fulinayaan kadibna iyaga lacag kale oo malaayiin ayaa loogu ballan qaaday wiilasha qaraxyada inay fuliyaan waxaana ka dambeeyay wahadaagii xukuumaddii hore oo shalay deegaanka burburisay heega waa darkiisa shalay deegaanka si ay u gashay si ay u dhibaataysay si bulshada loo burburiyey maantana waxay rabeen kuwii noocaas ee shalay dadka dhibaateeyey maadaama systemkoodii xumaa meesha ka baxay inay dadka haddana sii dhibaateeyeen bulshada waxba galabsan ay sii laayaan bay rabaan ilaa hadda goobaha la rabay in la qarxiyo waxay ahayd runaantii meelahay ku badan yihiin jaamacadaha oo kale siba iskuullada jaamacadaha meelaha maamulada haylka iyo meelaha kale oo badan oo gadaal baan kasoo sheegi doonaa baaritaanka markaan dhamaystiro taas oo la rabay in khalkhal ummadda lagu geliyo saad ogsoontihiinba deegaankeenna iyo dalkeenna waxaa kaana qaaday isbedel ballaaran oo run ahaantii xuquuqda bulshooyinka deegaanka lagu simeeyo hadda kore waan ogtiin dhibaatadii deegaanka soo martay dhibaatadii ballaarnadii deegaanka soo martay run ahaantii nidaamkii hore waa kii burburay meesha ka baxay kadibna dad hadhaac oo nidaamkii hore ku lug leh oo nidaamkii hore iyaga dan u ahaadee oon bulshada dan ka lahayn ayaa waxay sameynayaan inay falal ka fuliyaan ay doonayaan runaantii bulshada hadda joogtana waa bulsho dareensan isbedelkan jira oo doonaysa isbedelkan jira in laga faa'iidaysto bulshada ay ka faa'iidaysto run ahaantii shacabku aad u wanaagsan yahay annaga hay'adaha amniga gaar ahaan booliska bulshada si fiican bay noola shaqeysaa runaantii wayna ku mahadsan tahay bulshada inay nala shaqeyso qaraxaas oo la rabay in bulshada lagu dhibaateeyo oo la soo abaabulay 19 bisha qorshuhuna waxaa 26 in la fuliyeed oo ku beegan 26 bishan hadda in la fuliyeed toddobaadka ilaa 8 cisho waxaa laga shaqeynayay qorshahan si loo fulin lahaa meelahana loo qarxin lahaa waa 19 qorshuhu soo bilowday oo heshiisyada la galay
gadaal baan kasoo sheegi doonaa runaantii xubnaha iyo sidee kale hayeen iyo qaybta kulug lahaa iyo cidda isaga falka la fulinaysay dhammaantood gadaal baan kasoo sheegi laakiin axmed mahad colow axmed cilkas ku magac dheer ayaa falkan abaabulayay isagii laftiisa waa qiraal komishineerka booliska dowladda deegaanka soomaalida mudane maxamed cali xasan oo warbaahinta deegaanka xafiiskiisa ugu waramay ayaa waxaa kaloo uu sheegay in kasokow isku daygani qaraxyada iyo falalka argagixisan nimadka ah ee la rabay in lagu wiiqo nabadgelyada iyo xasiloonida shacabka deegaanka soomaalidu ay jiraan lacago fara badan oo la qaybiyey dadyo kala duwan oo falal argagixiso la rabo inay fuliyaan ay hay-adaha ammaanku ku daba jiraan waxaa kaloo jirta iyadana lacago badan oo meelo kale u diray waxaa jirta iyadana ay ahayd hadda qarbixe kale wuxuu diray 1 milyan buu diray arsaba kale wuxuu diray 370,000 oo lacag uu diray qorshahaasi wuxuu ahaa qorshe ballaaran oo loogu talagalay in bulshada aan waxba galabsanin in lagu dhibaateeyo waxaasoo dhan isku soo duuduubay ujeedada la rabay keliyata waxay ahayd in nidaamkan iyo isbedelkan lagaga hortago ayaheed ujeedada koow shacabkan waxba galabsanin lagu dhibaateeyo loona yidhaahdo wakaa dowladdan waxba qaban mayso oo nidaamkii horaaba dhaamay tan si loo yidhahdo ahayd ujeedada laga lahaa weeyaan runtaan hay'adaha amniga iyo shacabka annagoo iskaashanayna runtii ayaan gacanta ku dhignay falkaas isagoon meel loo bixin waxbana aan lagu filin oo sidiisii ah run ahaantii ayaanu fashilinay arrinkaas waan si fiican baan u fashilinay komishineerka booliska dowladda deegaanka soomaalida radaad komishineer maxamed cali xasan ayaa warbaahinta u sheegay in kooxo nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanku uu dhib ku yahay ay qorshaynayaan inay isku dhufasho ka dhex abuuraan qoomiyadaha walaalaha ay wada dega dalka iyo deegaankaba iyadoo la qorsheeyey dhacdo 4 August oo kala weeg balse ay hay-adaha ammaanku fashiliyeen sida uu komishineerku noo sheegay falkan markii la fuliyo waxaa loogu talagalay in qorshe kale garab yaalla ma jira in qoomiyadaha kale dalka inaguna say u cararaan in waraaqada xabash iyo Soomaali lagu qoro oo la yiraahdo iska carar wadankan nabadgelyada kama jiro waan leeynaa waan baabinaa baaqina waan leeynaa sidii hadda kore heegadu ay u gasho kale qoomiyadaha kale u baad u leeysay ayaa loogu talagalay waraaqado af Soomaaliya xabash ku qoray iyaga laftooda in la daadiyo kadib qoomiyadaha kalena ay sidaa wadanka ka guuraan wadankan khalka loo geliyo hay-adaha ammaanka ee deegaanka oo gacanta ku dhigay xubnaha faldambiyeedkan gacanta kula jiray oo uu ka mid ahaa axmed mahad colow iyo 3 ruux oo kale ayaa waxaan waraysi kula yeelanay xarunta booliska ee deegaanka waana kuwan xubnaha faldambiyeedka gacanta kula jiray oo iyagu ka hadlaya arrintaasi waxyaalaha ka lahayn macnaha anigu lacag aan soo qaaday targetka oo ka dhigay halka jaamacadda iyo leerka qolada saa macnaha targetkoodu ahaa 4 waan aniga u maray 4 kalaam komishineerka booliska dowladda deegaanka soomaalida radaad komishineer maxamed cali xasan ayaa qaybaha kala duwan ee shacabka deegaanka ugu baaqay inay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka isla mar ahaantaana gacan ka geystaan xasiloonida iyo nabadgelyada wax kasta oo wiiqaya nabadgelyadana ay ka hortagaan una soo gudbiyaan hay-adaha ammaanka saacad walbana ay fuujignaan badan muujiyaan hagaag daawadayaal intaas waxaa inoogu eg warkii degdega ay haddana soo gaadhay warkan oo faahfaahsan waxaad la socon doontaan xili tabinteena dambe